runtii waxaan kusoo baranay duruufyo kala duwan waxbarashadeennii dugsiga hoose dugsiga dhexe dugsiga sare ilaa heer jaamacadeed waxaan dugsiga sare aga baxay dugsiga sare Axmed Gurey ku yaala miisaanka dhuxusha hadda 2004 ayaan dhameeyay secondary-ga waxaan kadibna ku biiray dalka Malaysia aan waxbarasho u aaday halkaas oo aan ku diyaariyay horaantii sanadka 2004 ilaa 2005 barashada luqadda Englishka kadibna waxaan ku biiray jaamacad 2006 halkaas oo aan runtii u go'doomay inaan wax badan kaga soo faa'iido ama aan aqoontayda aan kor ugu qaado cilmiga dalxiiska oo runtii ahaa cilmiga koowaad oo doortay inaan meel sare ka gaaro sababahan u bartayna runtii ay ahayd baahi badan oo dalka ka jirtay ama aragti fog oo aan ka lahaa inaan runtii aan dalka inta ku soo laabano aan wax badan wax kaga bedelno waxna ku horumarino haday noqon lahayd dal ahaan iyo dad ahaan intaba iyo magac guud Soomaali inaan wax ka bedelno tii waxa moodaa in Ilaahay maaragtay nawaafajiyay alxamdulillah 2011 ayaan dalka ku soo laabtay 2011 markaan soo laabanay waxaan runtii aan howl la wadnay hay'adda ugu weyn gargaarka ama ibnaadinimada ee la yiraahdo Mercy Malaysia dalka Malaysia laga leeyahay waxaan ku soo aadnay waqti duruufta aad u adkay dalkeena aan ku soo laabano taasoo runtii markaas ay jireen baahiyo iyo maaragtay waxyaabaha la xiriiro humanitarian crisis ay dhahaan oo dalkoo dhan loo soo wada gurmaday Turkiya iyo wadamo badan ay u soo gurmadeen ayaa anagan runtii maadaama dalka Malaysia wax ku soo baranay waxaan lead u ahayn qolo ka socotay hay'adda Mercy Malaysia wadankan wax badan ka fuliyay wax badan ka hirgeliyay dad badan runtii sabab u noqday in Ilaahay maaragtay sabab aga dhigay inay badbaadaan shaqadaas dheer iyo hawshaas dadkaas loo gurmaday kadib ayaa runtii wixii madaxii ka guuxay oo dalkan u soo bartay oo ahayd inaan dalxiiska soo nooleeno aqoon ahaan dhalinyarada aan u diyaarino u tababarno ay ka shaqeystaan intii waxa moodaa inaan xafiiskan 2012 aan asaasnay oo maanta aan fadhino warbixintan ay ka siinayo dalxiis ka shaqeyno association sameynay macaahid sameynay xataa sameynay in wax laga bedelo habdhaqanka ama sida loo agaasimo dhacdooyinka waaweyn oo heer qaran wadanka ka dhaco intii waxa moodaa maanta alxamdulillah intii inay riyo ahayd maanta hergashay oo wali baan gacanta aan ku hayno waxa kamid ahaa waxa ogtihiin wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska oo ayadana aan bahwadaagnahay oo aniga cilmiga aan soo barteen aan kala shaqeeyo meel fiican aan ka gaarnay oo muddo ilaa 5 sano aan ka shaqeynay Soomaaliya sidii xubin buuxda ku noqon lahayd hay'adda dalxiiska adduunka oo runtii dhacdo aad u weyn oo heer qaran ah qof walba Soomaalina oo runtii u arkay guul oo maaragtay inay Soomaaliya gaartay waqtigaas dheer aan gelinay iyo dawladda kaalintii ka geysatay anagoo isku duwan aqoonteennii iyo waxaan iswaafajinay iyo dadaalkii dawladda ay waday intii waxaan ku gaarnay inaan Soomaaliya helno kursigeedii saxda ahaa ay ku fadhiisato oo waliba si maaragtay runtii aad u qurxoon oo hanaan protocol leh wax walba leh maanta Soomaaliya waxay xubin buuxda ka tahay hay'adda dalxiiska adduunka ee la yiraahdo United Nations World Tourism Organization runtii taasna waxay ka turjumaysaa Soomaaliya iyo dalxiiskeeda iyo wax badan aniga madaxii ka guuxayo markii dambana aan runtii ka miro dhalanay anagoo dawladda la kaashanay maantana waxay noo tahay sumcad kulligeen noo soo wada hoytay taas ka sokow waxaan haddana aan aad xoog u saarnay Soomaaliya waxa la dhahaa boqolkiiba 75 waa dhalinyaro haddana waxa moodo xirfadiina aad u yartahay fursadii shaqeyn aad u yareen culuumta badan oo maaragtay aan ahayn cilmigan injineeriya ama maaragtay takhtarnimo dadku aad u bartaan ahayn in dhalinyaradii indhahooda u soo jeedino ay wax badan ka fahmaan runtii dhalinyaro badan aan ku dhiirigelinay oo maanta soo bartay qaar dalka joogan ka shaqeeyaan qaar jaamacadda gabagabo u tahay cilmiga la yiraahdo hospitality ama tourism ضيافك الصومالي أنكو شيء عند الحيس كي مرتسورك
runtii macadku wuxuu soo saaray tiro gaaraysa 230 dhalinyaro Soomaaliyeed isaan horey kugu sheegay boqolkiiba 95 way shaqeeyaan haddana tiro dhalinyaro ayuu tababaray marka awoodda macadka waxay tahay waa macad ka diiwaan gashan wasaaradda waxbarashada xiriir fiican la leh wasaaradda dalxiiska aniga hadda muddada yarta aan dhiganayo wax la yaan ka bartay waxa kamid ah kow nadaafada oo qaybo badan ka kooban iyo bulshada sidii loola macaamili lahaa oo aan islaahay muddada yarta hadda bisha aan dhiganayay wax badan ayaan maartay aan ka bartay oo meelaha goobaha hadda maqaayadaha iyo hoteelada xitaa qaar markaan tago aan nashqadaan ka sii qaataa oo wax la yahay macadka lagu sheegay meelaha qaar markaan aan tago hoteelada kale waxbaan ka bartaa waxna waan ku arkaa oo wax la sheegay kamida waxa kamida sida dadka loo hadlo loo soo dhaweeyo sida loo qanciyo hadal ahaan loogu qanciyo way farbadan yihiin wax la koobi karo ma aha macadku waxaan ugu talagalay wuxuu yahay inaan bixin karno shahaadooyin oo waxyaabo la yiraahdo soft skills inaan bixin karno diploma inaan bixin karno shahaado oo xuduur ah ama qofku inuu soo xaadiro koorsooyinka qaar inaan bixin karno taasaan waxay marto wacyiga dadka inay inta fahmaan xirfadahan waxaan kadibna aan u talaabsano meelaha kale aan u soconno